waxaan inii sheegaya halkan dadka Soomaalida rag iyo dumar naftiisa jecel qofka bila aadanka markuu gaaro age la dhaho 25 wixii ka sareeya inuu tiisa maaragtay naftiisa ka fakaro naftiisa ka gareeyo wadamada aan joogno malahan maaragtay waxyaalihii oo wadankeena qoraxda iyo eerka waxaan ka heli jirnay fitamiino badan iyo caafimaad badan halkan cuntadan aan kariyay waxa waaye waa cabbage waa broccoli waa carrot waa liin dhanaantii oo aan ku jarjaro ku kariyo qobkadis ma isticmaalin cusbo liin dhanaantaan ku kariyay waxa ku jira toon basal xabad yar oo chicken aan ku daray dadka raba inay waligood weight-kooda korin ama dhicin minis caafimaadkiisa qofka raba intaan waxa ka dhigan kartaa qado maxaa jiri tan waa qudradii marka aan kariyay suubka maraqana marka ka suubiyay maraqaan ka suubiyay wakaas wax yar oo olive yar baa dusha uga darasa marka karisid saas uu ekanaya calooshaada marka cuntadii maraq marka karisid kuma istaagayo hilib maahan oo faad ma lahan waa all nutrition waa vitamin waa wax jirkaaga maaragtay caafimaadkiisa kaabaya maskaxiyana qofka maaragtay u kaabaya qofku markuu rabo marka calooshiisa oo kale haduu rabo qofku inuu calooshiisa dareemo inuu fid noqdo oo buuxsamo rootigaas ku cunaya gabar marka tahay hooyo ah my advice cuntada inta marka cuntid xabada rootiga half-ka cuntid suubkan ku dartid enough bay kugu tahay ninka raga ama qofkii raba maaragtay calooshiisa u baratay cunto badan ama cunto weyn sida qofka bilaadanka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis cuntada laga dhargadiiniyeen ma fiicna qofka calooshiisa inay empty dareentaa fiican maxaa la dhihi jiray xabada rootiga French bread ku cuni karaa hal xabo canjeelo ku cuni karaa mala wuxuu ku cuni karaa bariis yar oo cad ah biyo cad ku karisay fish yar xataa hilibka hadaa cunto hilib yar oo steak ah oo aan ahayn hilibka ariga hilibka lo'da kala beefka ah marka ma sha Allah that's my food aniga usually I eat waxa waa alxamdulillah maxaa la dhihi jiray ii sheeg markaan xasuusto always busy baan laakiin markaan xasuusto I cook this food by myself waxa waaye ma taqaan ciyaalkana way baranay caruurta suubkana kale marka inta karsaa liinadaan ugu dartaan hooyo can you test isa uga dhadhami uu maaragtay ii sheeg uu dhadhaminaya uu maaragtay ka bacdina uu ka helaya there is not any spice kuma jirto liintaasaan ku kariyay biyo yar oo cad baan ku uumiyay maraqaasan ka suubiyay chicken ka hal xabo yar oo chicken wings ka xabad la dhahan ku dhex daray hadaba chicken wings wax yar waxa ku darsanaysaa fiisha Allahumma musta'an waxa ku karsan kartaa iyo kaleeto oo minis boski fishki hilibku isticmaal karta oo oil leh maxaa la dhihi jiray ii sheeg maxaa la dhihi jiray ii sheeg fishka salmonka kale waa ku karsan kartaa wax yar marka saa ula socda from now insha Allah waxaan bilaabi doonaa dadka heli doona videogan waxaad igala soconaysaan Facebook-gayga ah tolla ay Soomaaliyay waxaad kaloo igala socon kartaan Snapchat-kayga Khadra Xuseen waxaad kaloo igala socon kartaan Katra ma Facebook-gayga ama Khadra Foocher waa insha Allah wixii hadda ka dambeeyay holiday Christmas-ka markii la gaaro waxaan bilaabi doonaa healthy eat waxa la dhaho oo ku saabsan cuntooyinka Soomaalidu ay cunto sida cuntada la dhaho ii sheeg magaceeda sitska cuno galeyda masagada qamadiga digirta Soomaalida say u cunto si khaldan bay u cuntaa saliid bay ka buuxiyaa sokor bay ka buuxiyaa laakiin waxa inay bari doonaa nidaamka loo karsado nidaamka cuntooyinka loo nadaamiyo nidaamka healthiga caafimaad ku jira insha Allah adinkana benefit inay ah caloosha iyo jirka unugyadiisa dawo u ah marka kala socdo halkaas waa healthy eat iyo Khadra Foocher iyo healthy cun af Soomaali healthy cun cunto caafimaad la cun waaye marka waa inkaas